Assalaamu calaykum. Waxaan maanta ka hadlaynaa maalin aysan qiimaheeda dad badan oo Soomaali aysan la socon, taasoo ay sabab u tahay sida ay u weeqday midnimadii Soomaaliyeed. Calanka waxaa la sameeyey taariikhdu markay ahayd 12 Oktoobar 1954, waxaana sameeyey Ilaahay u naxariistay marxuum Maxamed Cawaale Liibaan. Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa nin wadani ah, ayaa in badan oo shacabka Soomaaliyeed aysan aqoon magaciisa iyo weliba muuqaalkiisa. Marxuumka ayaa markii uu sameeyey calanka wuxuu dood dheer la galay dad badan, ayagoo su'aalo ka weydiiyay astaamaha calanka, waxayna dood ugu weyn ka imaanaysaa dhanka gumeystayaashii, ayagoo markii hore diiday calanka buluugga ah. Maxamed Cawaale Liibaan, Ilaahay jannadii Firdawsa ka waraabiya, wuxuu ahaa nin ay ku weyn tahay qalbigiisa Soomaalinimada, isla markaana aad u qiimeeya walaaltinimada ummadda Soomaaliyeed. waxayna taasi astaan u tahay xiddigta cad ee ka bartamaha kaga taala calanka Soomaaliyeed ee ka turjumaysa jacaylka u qabay Soomaali weyn, oo ay xilligaasi kala qaybsadeen awoodihii reer Yurub iyo Itoobiya. Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Itoobiya ayaa dalka Soomaaliya u qaybsaday 5 qaybood oo kala ahaa: Koonfurta Soomaaliya oo ah gobollada Puntland, isla markaasna xilligaasi gacanta ugu jirtay dalka Talyaaniga; Waqooyi Galbeed oo hadda ka dhisan yahay maamulka Somaliland oo gacanta ku hayay xilligaasi Ingiriiska; Soomaali Galbeed oo hadda Itoobiya ka tirsan gacantana ugu jirtay xilligaas; Waqooyi Bari NFD oo hadda ka tirsan Kenya, xilligaasna gacanta ugu jirtay dowladda Ingiriiska; Djibouti oo xilligaasi gumaysanaysay dowladda Faransiiska. Midabka calanka: midabka caddaanka wuxuu Cawaale Liibaan ku micneeyay nabadgelyo, halka buluugana uu ku micneeyay kuna tilmaamay barwaaqada dalkeena taala sida badda, cirka, hawada iyo dhulka. Sidoo kale midabka buluugga ayaa lagu tilmaamaa midabka biyaha oo ah aasaasaha nolosha. Soo bandhigidda calanka: Dr. Cabdiqaadir Cali Bulaay oo ka mid ah dhalintii SYL ee dalka Soomaaliya u soo halgamay, oo ka hadlay ninkii hindisay astaanta calanka Soomaaliya, ayaa wuxuu yidhi markii uu Maxamed Cawaale Liibaan u soo bandhigay ururka SYL iyo kuwa mucaaradka ah, dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay muxaafad iyo mucaaradba calanka uu soo bandhigay Maxamed Cawaale Liibaan. Hase yeeshee markii loo geeyay maamulka Talyaaniga ayaa diiday, isla markaasna ku tilmaamay inuu eg yahay calanka dalka Zaire, sidaas darteed aan la ogolan cal dal leeyahay in dal kale uu qaato. balse Maxamed Cawaale Liibaan wuxuu Talyaaniga u sheegay in labada calan ay kala duwan yihiin, calanka dalka Zaire xiddigta ku dhex taalana ay dahabi tahay, sidaas darteed maamulka wuu ogolaaday in la qaato calanka buluugga oo xiddigta cad dhexda kaga taalo. Halgan dheer kadib, ummadda Soomaaliyeed waxay ku guuleysatay inay u suurto gasho inay yeelato calanka aadka u quruxda badan ee 5 xiddig dhexda uga taalo, kaasoo ka turjumaya jiritaanka iyo himilada ummadda Soomaaliyeed.